بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa saxaafadda dadka Soomaaliyeed caalamka inaan la wadaago arrin soo korodhay oo la xiriidha arrimaha doorashooyinka. Sida aad ogtihiin baryahan ilaa iyo halkii sane u dambeeyey waxaa lagu howlanaa siday dalka uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay xor iyo xalaala say waddanka uga dhici lahayd taasoo runtii juhdi badan lagu bixiyey. Meesha hadda ay soo gaadhayna la filayey in ay tahay meel lagu naaloon karo, dadka Soomaaliyeed ay ku qabi karaan kalsooni, qof waliba si xor oo xalaala ugu tartami karo maxaan ku idhahdaa kursigiisa. dabcan maxaan ku idhaahdaa doorashada nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa waa mid dadban, middaas oo awoodda siinaysa maamulada dowlad goboleedyada. Laakiin haddana marka la fiiriyo habraacyada iyo heshiiskii September 17 iyo 27 kii dhacay May, dhammaantood waxay si cad u qeexayaan inay doorashadu noqoto mid hufan oo maxaan ku idhaahdaa fair ah. Waxaa marka soo kordhay oo baryahan intii aanan maanta xaaladda dhacday idiin sheegin na soo gaadhayay aniga khaasatan in uu jiro isku day madaxweynaha Jubbaland uu isku dayayey ama war runtii aan ka helayay inaana tegi karin meesha la yidhaahdo Kismaayo oo ah goob doorashada kursiga beeshaydu uu yaallo oo aan doonayay inaan ku tartamo. Laakiin warkaas runtii uma qaadanin inuu yahay war serious ah, leanna ma filaynin inay qof mas-uul ah oo heerkaasu ay ka suuroobi karto oo goobjoog ka ahaayo signatory ka ahaa ama saxiixa ka ahaa doorashooyinka maxaan ku idhahdaa qaabka ay u dhacayaan iyo habroocyadooda signatory ka ahaa inuu u badheeri karayo inuu yidhaahdo dad tartamayaal ah ma imaan karaan Kismaayo oo ma kambayn garayn karaan. Arrintaas runtii arrin cid walba ku adkayd bay ahayd inay maxaan ku idhahdaa aqbasho. Laakiin runtii anigoo ka ambaqaadaya maxaan ku idhahdaa in la guda galay muxuu ahaa doorashadii. Aad ogtihiin guddiyadii doorashada in tababaradii u dhammaadeen, in badanoo ka mida inay goobahoodii dib ugu noqdeen, ayaa waxaan go'aansaday oon isu diyaarinayay wiigan oo dhan sidii aan ugu noqon lahaa ama aan u tegi lahaa deegaan doorashadii kursigeyga beeshayda u yaallay. haddaan beeshaa sheego waa beesha Maqaabul, maxaan ku idhahdaa ayaa kursigaas aan u tartamayo ayaa iska lahaa. marka diyaargarow ka bacdi waxaan soo gaarnay saaka 9:00 iyo badhkii inaan u kicintamo magaalada Kismaayo si aan u sii ambaqaado ololahaygii doorasho maxaan ku idhahdaa maalmahan ama wiigagan inagu soo aadan haddii la yidhaahdo. waxaan xidhiir la sameeyey odayaasha iyo dhallinyarada iyo haweenka beesha, maxaan ku idhahdaa waxayna go'aansadeen inay si mug leh ay iigu soo dhoweeyaan magaalada Kismaayo garoonkeeda. dabcan anigu markii aanu diyaaraddu kacday dee wax badan ma aanan ogeyn, leanna waxaa weeye access ma aanan lahayn networka. laakiin hadda intaanu soo noqonnay kabacdi waxaan ogaaday in dadkii loo diiday inay garoonka galaan, dadkii rabay inay soo dhoweeyaan. diyaaraddu markii aanu Kismaayo ku hoobannay oo ay ku dhoweyd inay degto ayaa maxaan ku dhahdaa pilotkii waxaa soo gaadhay fariin lagu amrayo inuu dib u noqdo security arrimo amniga la xidhiidha awgood. ninkii pilotka ah wuxuu noo sheegay in fariintaasi soo gaadhay sidaa daraaddeedna uusan u badheeri karayn inuu dego
sidaa isla markaana uu ku khasban yahay inuu dib ugu noqdo muqdisho wuxuuna yidhi dad sida wararku igu soo gaarayaan dad aan meesha laga rabin baa diyaaradda saaran dabcan anigu markiiba messageka ugu horreeyeyba markii uu pilotku sheegay waa fahmay dabcan dadkii maxaan ku dad badan oo daan xoogaal ahayn baa diyaaradda saarnaa buuq badan yaa maaragtay meeshii ka dhacay laakiin waa u sheegay waxaan ku idhi problem ma jiro anigoo ka duulaya fariimihii hore oo aan helay oo ahayd inuusan axmed madoobe doonayn inaan maxaan ku dhaha kismaayo imaado si aan ugu tartamo kursiga beesheenna anigoo taas maaragtay xiganaya ama xusuustaydu dee mar aan muxuu ahaa tix raacaya ayaa waxaan ogaaday in sababta diyaaradda loo celiyay ay tahay inaan anigu saarnahay laakiin pilotkii baan waxaan weydiiyey markuu yidhi waan noqonaynaa waxaan ku yidhi annaga jilib uma soconnay kismaayaan u soconnaa marka wuxuu igu yidhi waan ogahay inaan kismaayo u soconno meesha messageka ama fariintaan ka helayna waa kismaayo weeye waxaana lagu advice gareeyey ama lagula taliyey inaan dib u noqdo xaaladda marka saa ka dhacday oo aan dadka soomaaliyeed caalamka iyo meediyahaba u sheegayo arrintaas weeye waa arrin runtii la yaab leh waa arrin dimadaabiyo iyo dibudhac ku ah maxaan ku dhahdaa doorashada dadkuna hawadii iyo rajadii ay ka qabeen doorashada si guud gobolladoo dhan gaar ahaan hadda gobolkan Jubbaland runtii aad bay mugdi u sii galaysaa walaac badan baana dadku maxaan ku dhahdaa runtii ay ku biirin doontaa ama ay ku beeri doontaa waxaan arrintani waa arrin hordhac u ah inaanay marnaba Jubbaland ka dhici doonin doorasho hufan oo maxaan ku dhahdaa loo dhan yahay oo qofku uu xor iyo xalaal xor u noqon karayo inuu ka bogto inuu ololeeyo maxaan ku dhahdaa oo uu doorasho galo sidaa daraaddeed waxaan rabaa si hordhaca inaan u record gareeyo in kursiga beesha oo aan u tartamayey oo saaka ay sababtay in laga soo celiyo layna diiday inaan ololahaygii sameeyo iyo kuwa kale ee Soomaaliyeed dabcan laga yaabo in ka badan oo ka mid ah inay tagi karaan laakiin haddana markay gudaha tagaan aysan wax badan aysan awood u yeelan doonin inay galaan u yeeshaan ololahooda doorasho waxaan dadka Soomaaliyeed iyo caalamka iyo meediyahaba u sheegayaa in meeshaas isha lagu hayo waxaanan cad runtii inaanay doorasho halkaa ka dhici doonin waxaan mararka hore biciidsanaynay oo runtii adkayd inaan rumaysanno in dadku ay leeyihiin Axmed Madoobe wuxuu haystaa liiska doorashada dadka soo geli doona maxaan ku idhaahdaa 2021 Jubbaland runtii de kuraasta waxaa iskale qabaa'ilo beelaa iskale dabcan qof walba wuxuu filayaa inay beeluhu awood u yeelan doonaan inay doortaan dadka ay maxaan ku dhahdaa iyagu ay jecel yihiin marka conclusionkaygu waxaa waaye oo aan runtii ku soo gabagabaynayaa dhibaatadaasaa ka dhacday dabcan anigay si khaasa iigu dhacday laakiin waa mid runtii saameyn ku yeelanaysa ama ku wada dhacday dadka Soomaaliyeed ee samaha jecel dadka Soomaaliyeed ee doonaya inay kuraastooda si guud ugu tartamaan iyo si gaar ah Jubbaland caalamka oo runtii maxaan ku dhahdaa iyo maxaan ku dhahdaa dadka samay jeclayaasha ah oo runtii juhdi badan geliyey sidii doorasho xalaal ah ay uga dhici lahayd maxaan ku dhahdaa gobolkaas intaasaan rabaa inaan idinla wadaago waxaanan jeclahay in tallaabooyinka xiga oo aan ku xaqiijinayo inaan si maxaan ku dhahdaa xor ah aan ugu tartamo kursigaas inaan ka sii shaqayn doono waanad mahadsantihiin waa gartay maxay tahay sababta keeni karta in adiga si gaar ah lagu beegsado oo laga soo celiyo garoonka oo aan ka tegin waxa aan filayaa wax hadda gooni aan ogahay ma jiraan laakiin inta aan ogahay waxa weeye inaan aniga Axmed ku kala duwanahay ra'yiga xagga siyaasadda marka dabcan waxaan u aanaynayaa oo kaliya inaan ku kala duwanahay ra'yiga siyaasadeed inaan ku kala duwanahay kaliya aan filayaa inay tahay sababtu marka halka muxuu
noqon karaa heshiisaa la gaaray siyaasaddii waa lagu heshiiyey ra-iisul wasaarihii iyo hogaaminaya shalay ayay gaareen maantana waa si shaksiya lagaaga soo celiyey marka xalka muxuu noqon karaa walaa xalku wax hadda aniga si gooniya iigu yaalla maaragtay ma aha waa xal soomaali oo dhan u yaalla waa xal u yaalla saxiixayaashii heshiiskan doorasho iyo habraacyadiisii waa heshiis ay isha ku hayaan caalamku waa heshiis dadka soomaaliyeed si guud iyo kuwa hamigu ka haya kuraastaba u yaalla xalkeeda leanna waxaa weeye haddii tan indhaha laga qabsado waxaa dhici doonta in ay qof waliba u badheedho oo uu dee dabcan yaqiinsado inuu wuxuu doono samayn karo marka haddaan tan waxba laga qaban waxaan aad uga baqayaa inay talo faraha ka baxdo oo ay tani horseedo doorasho maxaanku idhaahdaa aan sax ahayn iyo outcome ama natiijo aan saxayn inay ka soo baxdo waa gartay maanta kismaayo waa lagaa soo celiyey ma tegaysaa marka la kismaayo oo ugu tartamaysaa dabcan horta waxaan rabaa inaan kuu sheego anigu reerkayga iyo carruurtayda ayaa degan magaalada kismaayo September 2019kii ayaa iigu dambeysay intaasna runtii maxaanku idhahdaa waxaan ka baaqsanayay inaan tago anigoo mar walba helayay fariin ah ma tegi kartid laakiin mar walba waxaan anigu filayay in warka la ii sheegayo uusan sax yihiin maadaama soomaalidu ay iska hadal badan tahay laakiin saakaan yaqiinsaday kama daali doono kama rajaga dhigi doono haddii aan la yidhaahdo inaan reerkaygii iyo ciyaalkaygii aan u tago kama raja dhigi doono inaan u tartamo kursiga maxaanku idhahda jifadayda haddii waana wadi doona dadaalkayga Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier